bambadi marka arkay marka dadka ku qeyliyo haday kala cararay qofkan bam wataay qofka shaatiga buluuga wato waa marqaatiga gacanta midigo ka haya bamkiina wuxuu jiraa jeebka midigo ku jira waa waday 2 garam isla galnay aniga iyo dhalinyaradii kale oo markaas soo waday meesha marka aad tagtay maxaa ka socday maxay ahayd meesha dabaaldega ka soo baaji wure soo baaji bamka lagu tuuraa oo kooda miya si loo baaji bambadaasna tuurtid bam baaji suuray meesha baaji laba habeen kadib maalintii galmudug 16 bisha Agoosto walina madaxa nabada furan yahay ayayna soo gashay habeen kale oo laga marakacayay taariikhda cusub ee dhanka dimuqraadiyadda Soomaaliya ah waana 1 milyan oo muwaadiniin ah in loo diiwaan geliyo doorashada qof iyo cod taasoo cadeysay rabitaan bulsheed iyo isbedel siyaasadeed oo soo kordhaya isu soo bax lagu bogaadinayo halka sahankeena dawladeed uu tiigsaday ayaa shacabka caasimadda ku kulmiyay fagaaraha dabaaldega Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaasna ayay noo joogtay qawaariijase waxa ay u mareysay habeenkaas quruxda iyo dareenka jira ay mugdi iyo xasuuq u bedelaan hawshaas ayaana loo soo diray eedeysane Aadan Nuur Muuse oo bam iPhone wata si uu u dhaxdhigo boqolaalka shacabka isu soo baxay sida waxa uu dhaceynaa macallay yar oo sidiyaha iyo tashkiili artan haye marka inta yarkaas iyo tashkiilinin yaa marka ninkan oo weeliye isoo wacay marka saddexdeed magac uu sheegay saddexdeed magac markuu sheegay lambarkii uu soo siiyaan cidii soo siiyay iyo bisheegin marka aniga waxa ka rabnaa lambar 4 ilaa macal nuur luuq walba beesh loo baxayo inaan oo soo ogaada rabnaa weeyaan miya maqawn kariya shaqadaas aan dhahay markii maqawn karaan dhahay shibaan ka dhahay marka loo berka baadi 4 qof oo dad iga soo ay garaade kabacdina sidii markii uu tashkiiliyo cuuday maxal dhahay intii dhawaatan ku dhacoys u jeedada nimankaas la shaqeey bal shaqeey kariyaan marka in 4 mar ay garaan ku laadi aan shaqadeena qabto markaas isku day marka nidaamku uu bari waa u tagay iimaaw ilaahay fadhigiisa oo u tagay guriisa oo u tagay marka wuxuu leeyahay hal xab bambu isoo dhiibay ashiba markuu isoo dhiibay wuxuu leeyahay meeshii ligeena anaga ku soo sheegay uu leeyahay bambadii waa soo qaaday xaafadii la imaad meelan dhig waxa shaqada ma qaban kariyaan dhahay qasab uu qabanaysa uu leeyahay dhahay anoo marka mood iska wado oo yarkaana marka mood ay ijaarti marka toonkiis door u tuur moodada anoo ku shaqeysanahay galabtii ninka isoo wacay wuxuu leeyahay isgooska oo Taleex dabaaldega soo dabaaldega sana joojistan ka rabaa ma yeeli kariyaa sida waa yeelaysa sida bambadii waa soo qaaday dabaaldegi dhacaysana soo fadhiistay meeshan iska istaagi marka dad shacab ay shakiyeen oo ay imaadeen ay soo qabteen ciidanka ay soo dhiibeen sidaas ku eedeysanay ninka ku soo wac muxuu ahaa ninkii soo wac weeliyaal ilaa uu leesas ii sheegay hor mu taqaan hor mu aqaanin sidiga oo la shaqay ku dhacaaw ninka miya maya sidigii walaashii uu qabaa xamru jooga san dhismo ku shaqeeyaa magaciisa sidiga ciise nuur siciid marka maalintii aniga baasha soo qaaday islaameenkiina oo ciidanka hawsha la soo qabtay rabi asigana marka uu baxay marka waa lii wacay uu dhahay marka ninkaas aadi weey xagga la shaqeysanayo miya marka xamru ku shaqeysanayo xamru macruuf jooga dhismo ku shaqeeyaa miya dhismo ku shaqeeyaa tagtay meesha uu joogo heli inta ugu tagtay waxa uu tagay wuxuu dhahay muwaardi ma uu dhahay uu ii gambiyay marka uu soo wacay awdheegli ma uu dhahay awdheegli aan tagay awdheegli markaan u tagay meel gaar ah oo atay hormuud agteeda tayada ku taagan meeshu uu balamay marka meesha markaan tagay oo ii waday guri gaar ah igey guri gaar markuu igey hadan oo iga bixi meel oo duur ah banaan ah oo leemi wax ku yaalo asi wareejin meeshu igey marka meeshu uu marti qaaday sidii soo dhaweey afaaras ii sheegay walaalo ma qaban kariyaan dhahay marka waa uu qasbi markii markii soo qaaday bamba horma u tuuri jirtay weligay ma tuuran si yaa ku bara marka in la qaado oo la tuuro asaab isla markaas oo isla maalintaas uu ii sheegay qaabku kugu sheegay wuxuu leeyahay baashan waa la furaa waa la xiraa hadaa la furo oo baasha saas loo tuuro ma qarxiiso yidhahay haddii la isku xiro oo la tuuran ma qarxiiso yidhahay marka gacanjada ka bixinay saas ku tuuraysaa uu yidhahay saas miyaan ma yeeli karayaan waaye haddii yeeli karaan adoo yeel u dhina yeelaysaa uu yidhahay marka ana waa macaadi waa soo qaaday shacabka dhexdiisa iska dhex imaada in lii qabto oo lii soo xiro waa isku talgalay maayna anoo bixinay tuuraa lii ma qabanin anoo saas oo jeebkii u jirto jaakad jeebkadii u jirto oo saan meel oo shacabka geesay baawrka dabaaldeg garabkiisa istaaganahay aadigi shaki wali baari sidii ali soo waday meesha marka aad tagtay maxaa ka socday maxay ahayd meesha waxa ka socday ani ba xasab aqoob u lii marka dabaaldeg way wax saas ali laakiin asig dabaaldeg ayuu sheegay
كاسك وشك دبالدق dabaaldegaa kusoo soo baaji wure سأو باجي سبامك على الطورة وكودا ميا si loo baaji bambadaasina tuurtid baaji sure meesha baaji dabaaldegaas baaji هذا مركز دبالدق ماشي بحكي سعود بابوركم هو هاي مش تاجنا oo maya baaburku lagu dabaaldegayo oo lagu buuqayo agtiisan baabur markuu derbigaas istaagay ani derbigan kale istaagnay saasa meesha uu istaaganahay marka dad shacab yimaadeen waa baarbaareen baashay u arkeen sidii aan u soo raacay هذه دتك محوك كلا شكيسين معناه دتك محوك كلهن jaaktina ay u jirtino jaakada ay u jirti dhalinyarada dhinacooda dhalinyarada dhex istaagnay dhalinyaradana oo istaagnay imaadeen oo dabaaldeg iska fiirsanay imaadeen waa baareen baashay u arkeen جاكد ياكل سوق حاجة ما كسوق jaakada anaa iska laa anaa watiba habeenay ma wada ku shaqeysanay anaa watib ma wada ku shaqeysanay leeyahay saarna ma wada ku shaqeysanay anaa wati jaakada مركز بينك أنا بام كوغري ساو سوق اجتماع yaa maya sideed buu watib jaakada sideed habeenkii biskariyan waa watib موتضاد يا لا أو aan mootadii waa gadi marka habeenkii soo qabanay yarkan walaalkeyga mootadiisan aan watay maalintii subaxdii ana kireesti lacagtiisan u tuuray waxaan mootada bir waqti soo shaqeynaa mootadii waa iska gaday moot kari raadiyaan dhahay ما قبل استعمال موتضاد صاحبك moota saaxiibkii halkaas maalin leh موجا هنا بمبوت maya waxa faarina wax kama ogaasa موتضاد كور محك شغل جيت هذا mootada ka hor dhisma ka shaqeynay dhismada ka horna ariyan raac jiri adana beerleel iska hay ما ليس أنت كمل meel walba liig soo wacayba hal nin oo fuud u shaqeynay meel walba say soo wacay meel hebel ma weydaay waa sidii aan ku tagay أرنتي أو فيرنت استدلاع أنت قدام بي استلاaq waxaan fiiri mala waxaan meesha ku fiira daimanis ma wala iska dhaayani lambar 4 iyo maxalla iyo x luuq walba ii fiiri weeyday aan waa ku fiiri iska ma wada ma mashquul ma marmar luuqaasada waa ku fiira taw tashnees ma waan iska dhaay maxaa laga fiirinaa meesha maxaa ka jiro luuq walba macnaha luuq loo baxaayo luuq walba la maraayo luuq walba dadaan soo dirsanaa ku dhalinyarada soo dirsanaa luuq walba laga baxay inay soo ogaadaan oo qaabkiisa kii la maraayo magaciisa ay soo sheegtid saasan gaaro oo dadaan soo dirsanaa dadaa meesha ii joogo maalintii oo meeshan iyo aan aadan oo la ogaado dadoo ii soo dirsanaa marka waa ma aadan oo idhay bari meeqa ku soo diray lacag marka oo ku soo diray ma lacag maalintii uu tagay $40 ii soo tuuri markii oo dhibaato si gaarsiin $50 kan in gadkaad u qaado idhay $90 aasas waa isku daaway marka horteeda u socdaan dhalinyarada rayidka ah ee caasimadda oo fajigan ayaana markiiba ku baraarugay walwalka iyo gaarhaanshiyaha ku jira eedeysanaha khatarta maleegaya waxaana ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan dhagarqabi aadan iyo bam F1 uu faraqa ku watay waa kuwan labada muwaadin ee sida geesidnimada leh uga hortagay falkan argagixiso oo loo abaabulay inuu sababo dhimasho iyo dhaawac allase uu baajiyey jeceelow oo ka mid ah dadka goobta joogay ee shacabka fajignaanta dheeriga ah qabay oo arkay hulaabashada eedeysane aadan ayaa wax ka weydiiyey marka hore waxa ka qaldan waasoo uu carray ilaa carab uu jeceelow kula soo biray qabashada dhagarqabaha bamka wata si wada jira ayayna garbaduub ugu xireen ilaa booliiska looga simo koolbuwaardiyaha hayaad market anoo istaagsan yarkaas gadaashay soo galay asoo naxsan oo walwalsan wajigiisana oo wax cabsi ka muuqato gadaal u fiiriyay waxa dhahay maxaa tahay dhahay ilama hadlin derbigu sii orday marka anoo taxadir sameynaayo marka kale baareys dhahay marka jaakada watay gacmihi hadii la aaday gacmuhu kala tuuray uu carray markuu carrayna marka waabi shakiga marka koob aan qabay waa cadaatay waan ka dab array soo qabtay asii markii dambe waa isdhiibi koodi markaan qabtay waa isdhiibi bambadi markaan arkay marka dadka ku qeyliya waxa dhahay kala carray qofkan bam wataay dadkeena sida ku carray wiil hadda ila jira asna ila soo qabtay yar police hadda inta joogaana ku wareejini markii dambe mooto lamlugaad oo si wata soo qabanay nabasugida gaari meesha noo yaala ku wareejini intaas ogahay cabsida si ka muuqata ka shakisay ada qof wax damacsan waay mugtaa surgeon ku sameeyay qofkan kori hoosa ka fiiri qof oo hata ila quman ma ma yahan ma fahanti qof wax damacsan waa marka saasa marka shaki ugu dhalisay hadana ma tahay marka dhahay ilama hadlin darbigu si dhawaaday marka waa garan kartaa marka meeshan waa lagu naadinay al-isnaalino cadowgana soo dhaxgalin aan lagu naadinay marka koob waa fijignaa markaani attention keen wajoogi bamkiisa ku fahantin oo hay markaas oo kale markuu cararay oo loogu ku cararay oo aan qabtay jaakada dhabarkeeda dambe qaybteeda dambe aan qabtay oo isna isdhiibay aabaare ku dhahay
jaabka igu jirtay yaa ka soo bixiyey anaa soo bixi gacmaha ka soo duubay waa la soo baxnay yarkan booliiska oo asna waxba aan ogeyn oo meeshan albaabkan laga galay jaranjarada dukaankan xayaat aan uga imaaday asaa marka ku wareejinay iyadoo xalfadii lagu jiray oo isgoyska leh oo 1 milyan oo doorasho qof cad ah oo 1 milyan doorasho qof oo lagu dabaaldegayo oo degmada Taleex ka dhacayso markaas xayaat abkeeda aan taaganahay ayaa waxa gadaashii ka helay laba qofood oo isku degan tahay isku degan arkay markaas aanana shawa sii dheh markaas waxa liide yarko oo qabtay wuxuu dhahay ninka bambo taay markaas si xaaladina waa diji markaas taliya meesha ka dhawaa taliya marka u wacay markaas waa in caloolo baxay bamka saasa loo bixiyay sidaas ay wax u dhaceen laba qofood gadaashi oo dadka kala ordayna arkay kadib aanna shawa sii dheh mar qofka waa sii xoojiyay waa garab ninka garab waa sii garabka markaas ninka wuxuu leeyahay ninka bambo taay markaas aan bambo taay arintii marka taliya meesha ka dhawaa taliya oo wacay nin arintaas jirtay kaaliya dhahay markaas waa taliya aan geesa oo la baxnay bamka la bixiyay falka sidaas ay u dhaceen xalfadda lagu dabaaldegayo oo 1 milyan oo doorasho qof cad ah carab iyo jeceelo waxaa la jira oo isna marag ka ah maxkamadda sargaal xigeenkii kala wareegay eedeysanaha bam iyo mootofaykoon maalin habeen ay tahay taariikhdu 16 Oktoobar waxay soo wacay taliya-xigeenka saldhigga booliiska Hodan wuxuu yiri shaqo oo waxa ka jirta banaanbax oo doorashooyinka gabagabada doorashooyinka waxa la rabaa inaad tagto eerida Taleex goobtii aan tagay amnigii aan sugay eerida dhamaan xiray markaan eeriyada xiray anoo meeshii jooga ayaa waxa ii yimid laba nin oo nin garbaha ka wada anoo eeriyada taagan oo markii aan goobta shaqada aan soo xiray meel taagan saas u taagan laakiin dhar caadi ah wata dharkan ma aan wadan way ii yimaadeen ayagoo saas u sii socda warkaalayaan ilaa labada nin waa waday labada garama isla galnay aniga iyo dhalinyaradii kale oo markaas soo waday gaari barobkiisu meel ii yaalaan geeyay gadaalan ka furay jeeb baan ku xiray waa xari marka xariyo waxaan la wadaagay taliyihii booliiska oo xukumay oo taliya-xigeenkii iyo taliyihii nabad sugidda goobtii ugu yimaadeen markaas aan wadaaya waxaan ka qaaday furo feekon aan jeebkiisa ka baxshay furii feekonta markaan jeebkiisa ka baxshaan gaariga ku soo hubsado waa soo dhaqaaqay feekono badan oo meel yaalaan u tagay dadkii wataan waxaan iri war hala dhaqaaqo way dhaqaaqeen feekonti bisa meesha ku soo hartay feekonti markaan u tagay furiyaan ku kacshay waa arkay feekonti inay meesha taallo waa soo kaxeeyey goobtii oo asaga lagu hayaan keenay waxaa igala wareegay taliya-xigeenkii shaqada markaas aniga goobtii uga ogaay asaga iyo maxbuuskiiba markaas intaas ayaan ka ogaa gudoomiye habeenkaas meesha maxaa ka jira diiwaangelintii oo doorashooyinka la diiwaan galay gobolka Banaadir dhammaaday 18 degmo meesha la isku keenay eedeysane Caawil Cabdi Maxamed Raage ayaa isna sheekadan ku soo galay gacan siin dambi maadaama wiilka eedadiis ina fiican Maxamed Raage oo ah eedeysanaha kuwaad ugu dhiibay mootofaykoonta lagu qabanayay howlaha indheynta iyo tuurista bambooyinka milkilihii mootofaykoonta Cambuulo ayaana isna nala jooga ninka mooto wada jiro ku shaqaysan jiray dhismoona ka shaqayn jiray oo soo wacsi waxaan xaafadeeda joogo ma oo dhahay waayahay dhahay anoo hadin iska mashquulo soo wacay xagga jooga ma oo dhahay oo u tagay mooto iska gaday mootada markuu iska gaday dhahay dalaalkii si dalaala ka qaatay markaas waxaa xaafadeedii soo bar xaafadeeda aan waa soo laabanay shaqo la'aan ay soo xasooyda dhimal mooto lagu raadina shaqo waa helay dhamar bis waa soo baxo dhaniyo meel u socda mooto ii dhibni oo ku shaqaysana ilaa maanta wax amalna ma hayo okay kiradii ii tuura dhamar kiradii ii tuuray waa iska soo bax xaafadir saaxiibkii iska aaday habeenkii maqribkii ma dhahay 12 saac wacay lambar 4 joogo dhahay hal saac amal ku celiyay taleefankiisu ii dhacdan fariicada saarmay 8 saac weynima anoo xaafadii iska joogo lagu imaaday soo baxalida waa soo baxay aniga waa soo baxay meesha tagay oo ii sheegeen wali xiray wali waraystay ani shaqo ku miliya dhahay inkaas ani eedadii inay dhashaa u aqaana wax kale to saaxiib woosaad nagama dhaxeenin aniga askari hadda tababar ka soo baxa ahay shaqo ku miliya dhahay wuxuu keensaa si xawaa dawladda waada
أنا موتاس هكا كريستي وح كلا تأسوه ما أنا مجرو maxaa isku tiina asiga أنا يدي يا ليش أسي eedadaas magaca في عم محمد راي fiican maxamed raag ma dhashay muuse raagana hal raag miya raagayash والله أنا اسكو مسو دحدق من لكن ilma adeer guudna ma tihiin magaca raaga aadan nuur muuse raagaa la dhahaa asigan أنا عبد محمد راي دلا سن في عم محمد راي أدش hooyadas kasoo gashaan adiga ciidanka u tababartay أنا مركز إبوك صوب حاول لو أسبوع لو بنانك جوي أنت بنانك جوك تسلا إسكسي شقيسو ريركا إسكبيلو مركز شغال كوسو بحين شغال إسكات موتadii ku soo gaday mootada waxa iska la yar oo siidigay oo cambuula la dhahay Ibrahim Allah cambuula la mootada cambuula iska leh wuxuu qabtaa cambuula asiga cambuula askari waa askari kale miya oo ka tirsan oo military ka tirsan oo amleena in askari oo military ka tirsan magaciisa ma ku diiwaan gashan mootada asaas kala magaciisa ku diiwaan galsan asaas soo gatay asaas shaqaale igu raadi dhahay ani awal mootaali iska ahay iska xamaasho marka ana shaqo u baahan marka waayo hawda ku sii shaqayso qolad delivery oo geey qolada iskala shaqaysanay waa dan laamiin waa ka sii shaqaysanay maxay qabataa delivery waa maxay delivery garaysaa macnaha maqaayadooyinka kale iyo waxyaalaha cunooyinka loo qadqaado cambuul inta ma fadhiya cambuula inta ma jooga uu jooga cambuula mootadas kor maxay lahaa jirtay moota inta tababarka adin ka hor moota lahaan jira ani iska leeyahay marka tababarka aaday gabadha qaba iska gaddaa marka mootadas yaa ku gadaday mootaa cambuula iska leh Ibrahim iska leh tii hore lahaan jira ana iska leh taas ana yaa ku gaday taas ana gatay aniga qola astaan TV la u shaqeyn jiray astaanta ka soo tagay ka bacdi moota iska gatay adiga shabaab ma naqatuliga shabaab aan weligii ma arkin xamar ma ka bixin baan weligii ma noqoto shabaab ka mid noqon maya cambuula hay adiga horta maxaa tahay dabla ka tirsan dugsiga tababarka Jeneraal Dagabadar ayaan ahay aad waa shaqaysaa waa shaqeeyaa mootadan erateeda ka war mootadan aan kaaga sheekeeyo gudoomiye mootada baraabaha ku qaatay inaan qaraabo nahay oo dahabshiil u shaqeeyo waardiya ay dambeeytay waxaan isri bal 200 caruurtii waxba uma taraysee bal suuga iyo si wax looga helo mootadan u qaad $3 baraabahada la iska bixi $4 labana u dhig labana reerka ku xoojiso ninkan qaraabaan nahay gabadha ilmahabreedihiina qabi jiray halkaas aan isku baranay inaas eediyanahay baa ii keenay oo dameenka ahaa mootadu muraabahay ahayd 17 maalmood oo kaliya likaas ii waday oo $7 iga soo tuuray habeenka telefoon waa iga qaban waayay galabtii 3 saac 12 ayuu ii soo tuuri jiray marka muraabahan ku qaatay 3 bilood bishaarkayga imika laga jiray $78 aad ma ka dhamaatay mootada muraabahay haddayba cusub tahay muraabahay wili ma socotaa way أنا يقول صعدت بشاركي قال لك جري ما قال لك جرا تضباط الاستيت لك جرا وتدو جبي جيجوبا بشي تضباط سجاري لا تكيجي يا صوص عرب واك ولا قضي بوكيجي لو واكل شركة هبشيل أي لا ده هو جاي اللي يراوس الركاب وش غيزة أيام كقاطع نكلي وي خايبة وحي يقول له حي ماشي وحبل لك به لي صندوق يقفر عم كل شغيسته محل صندوق يقفر صندوق كذا واحد سيد ريف رجع يوقاته مركز سداسي كنت بيحيد معتضن صدح بلوضة إمكانية جيب كيجا وحكم بحياة $1 إلا ضحي وحبك بارك معتضن لو عصبتها يسوى ما صنت يفريس الكوميتي ولا قالوا رجال كاي يفريس aan isku ka dul saaro sharaxaada diiwaankiisa argagixisada isku xirka labada eedeysane soo bandhigista dambi muujinta iyo muuqaalka CCTV ee habka qabashada shacabka hana noo qaada dhigo xeraaliye gaashaan la dhaxay Axmed Cabdalla tanina waa mootadii eedeysanaha koowaad uu watay xilliga bamka uu soo qaadanay iyo xilliga bamka uu tuuri rabayba markaani waxa hortaalaa meel u dhow meesha laga qabanayo bamka uu ku tuuri rabay muuqaalkan waatana waa xayaad mool intaani go'aaminta aan gelinay waxa soo zoom galeen horta sida meesha zaxmada u tahay meesha ay wax ka dhici doonaan waa intaan go'aaminta ay ku jirto eedeysanaha ayaa meeshaani taagan hadda asagoo dharka madow wato oo jaakada madow wato waxa dareemaya marka marxaatiga aan maxkamadda hor keenay oo dadweynahaasi kamid ah mar alla markii uu dareemo uu leeyahay wariyaadi maxamed iyo isbaar horo ka cararaya eedeysanaha marka maxkamadda si fiican ha ila aragto dadkaas hadda ku dhex jira bamkiisa wuu wata wuxuu gaadooyaa jaanis yar oo ku tuuro waana mar alla markuu soo istaagay waxa ka shakiyay marxaatiga maxkamadda hor keenay waa kaas hadda soo cararay marqayaa qabtay qofka shaatiga buluuga wato waa marqaatiga gacanta midigo ka haya bamkiina wuxuu jiraa jeebka midigo ku jira oo ma aadi kara bidix hadoo la aadan ma tuuri karo labada gacmood oo gadaal isugu jabinaya dadweynihi u digaya marka wuxuu leeyahay ka kala carar ninka bam wataay
dadweynaha hal mar ay meeshaas kala firaaqeynayaan waa kaasa ilaa gadaalo sii wadaa waxa gacanta ka haya asaga waa kaasa marqaatigii waaye iyo eedeysanihii oo bamka jeebka ugu jiro kala carar waa kana waa la kala cararay waxa seef gareenayo oo dadkaas u kala digay waxa waaye marqaatiga aan maxkamadda hor keenay intaasi kadib carab ayaa ku soo biiraayo oo marqaatiga labaad maxkamadda hor keenay askari booliiska lagu wareejiyo isbitooraha waa kana iyadoo la wado gaari booliis oo meesha yaala la saaraya dhinacii kala angalka kala hadda kaamirada hadana aan ka soo qaadanay sidaani ay dadweynaha u buuxaan dhagar qabaana wuxuu waa intaan qof inuu bamka dhax dhigo si dhiig uu daadiyo waa kaasa waa la kala caray kala cararkaasi waa marka marqaatigu u digay dadka uga leeyahay ka kala carara ninka bam wata gacanta ku soo dhigay halkaan oo la soo marsiinaya maxkamaddu ay arki doontaa si clear waa kuwana dhinaca had soo socda askariga booliiska ahaa iyo labada marqaati ee maxkamadda aan hor keenay shacabka ahaa angalka saddexaad aan tagaynaa oo ah qof shacab oo kor saaran ayaa duubay waa tan iyadoo la wado dhagar qabihii iyo isbitoorii booliiska ahaa iyo labada marqaati maxkamadda aan hor keenay dadweynaha ka mid ahaa sidaas ayaa loogu wareejinaya laamaha amniga sidoo kale garsoorka ayaa natiijo baariseed la xiriira macluumaadka galkan ka dhageystay dambi baara ka tirsan sirdoonka qaranka ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle Axmed Cabdallah ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan loogu qaado qodobadii sharciga ay ku soo eedeeyeen waxaan maanta maxkamadda hor keenay eedeysane aadan nuur muuse iyo eedeysane cawil cabdi maxamed mudan gudoomiye labada eedeysane waxay ka tirsan yihiin kooxda argixisada ee al-shabaab waxaana loo soo diray inay falal amni dara ah ka fuliyaan gobolka banaadir inay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool muqdisho ay dhibaateeyaan waxaa la yaab leh mudan gudoomiye aadan nuur muuse in uu maxkamadda ka hor sheegay in sanadkan oo ah 2025 oo la bartay shabaabka dhagarta ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed la arkay habka ay dhiig dadka shacabka u daadinayaan uu jecleystay inuu argixisada ku biiro cidda ku tashkiilisay argixisadaas inuu ka mid noqdana waxaa la yaab si ah in walaashiis ninkii qabay uu ku tashkiiliyay waa nasiib xumo eedeysanaha asagoo mooto ka shaqeysanayo oo lacagtiisa si caadi ah u shaqeysanayo lacag xalaal ah ayuu wuxuu door biday inuu dhiig daadiyo si iskiisa ayuu meeshan uga baxay asaga ayaa mootadiisa inuu inta ka qaatay wuxuu ugu tagay duurku argixisada ugu tagay halkaasi ayaa si fiican loogu soo tashkiiliyay awaamiir la soo kala qaatay inuu checkpointiyada magaalada Muqdisho uu soo indheeyo wuu gudbiyay indheenti waxayna ugu fududaanaysaa indheentaas bacdama gaadiid dadweyne uu wato oo mooto feekon uu wato oo ku shaqeysanayo qof shaqeysanayo loo maleynayo mar labaad haddana waxaa soo indheeyay la yiri meelihii aan ku kala dhuuman lahayd haddii wax aad tuurto wuu soo indheeyay haddana wuu gudbiyay oo macnaha shaqaal diyaar u ahay la mid tahay mar haddii uu soo fiirsaday hadduu fal geesto luuq alla luuq oo ka bixi lahaa marka uu soo fiirsaday waa soo fiirsaday uu yiri shaqada la idire la mid tahay kaale la yiri duurka noogu ma duurkii uu tagay bamba efona loo soo dhiibay waxaana la baray habkii bambada loo tuuri lahaa bamka cid walba iskama tuuri karto waxay u baahan tahay in lagu baro eedeysanahani isla markii uu meesha tagay bamka hal baro yiri sida u tuuri lahaa waa la baray bamkii afarta laga saaray haddana shaqaha la idiro ku sii daray 16 bishii 8 ayaa la soo wacay waxa la yiri dadweyne ayaa waxay ku dabaaldegayaan xayaad mool ee degmada Hodan gaar ahaan Taleex ee tag meeshaasi bamkina qaado kuna tuur aad ayuu u farxay eedeysanaha magaalada kale asoo jiro aad u farxay wuu cararay gurigii oo tagay bamba efonti oo soo qaatay jaakadaani iyo habka bambada loo qarinayo argixisada mar hore soo bartay isagoo ku faraxsan dhiig inuu daadiyana rabo ayuu gurigii aaday bamkii oo soo qaatay goobtii yimid isagoo markii mar alla markii goobta uu yimid nin daalan oo soo orday oo ahaa farxad ee uga cadeedo inuu bamku tuuro uu rabo dhiig daadiyo rabay waxaa dareemay mid ka mid ah dadweynihii goobtaasi ku dabaaldegay dadweynaha halkaasi maxay ka sameynayeen waa dad iska caweenayo dabaaldegayo farxad qaadanayo diiwaan gelin doorasho soo sameeyay ayuu eedeysanahani wuxuu rabay farxadda inuu murugo u bedelo tiiraayo inuu u bedelo rabay qoysas badan iyo guryo badan ayuu wuxuu rabay inuu mugdi ka dhigo bamba efon ayuu rabay inuu ku dilo dadkaasi inuu ku xasuuqo rabay 10,000 oo qof ayaa meesha isugu timid iyo in ka badanba eedeysanahani jaaniskaasi wuxuu rabay inuu dadka baabi'iyo mudan gudoomiye waxa la yaab ah waxa
waxaa la yaab ah in asagoo ah 23 jir dalkaani la rabay in uu dalkiisa wax ka dhisto dalkiisa uu ka shaqaysto la rabay fahmo dhagarta argixisada la rabay ayuu wuxuu diyaar u noqday inuu dhig daadiyo waxaa la yaabaa marka mid ka mid ah dadweynihii halkaasi ku dabaaldegayay ayaa dareemay eedeysanaanu ka shakiyey kadibna gacanta ku dhigay ninkaasi muxuu sameeyey wuxuu badbaadinayay dadweynaha halkaasi joogay dhiigooda badbaadinayay kana muxuu rabay inuu dhiigooda daadiyo ogow mudan gudoomiye labadaasi shakhsi waa laba qof oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed nina dhiig inuu daadiyo meeshaas u yimid nina wuu badbaadiyay dhiigii badbaadiyay waa kala garad duwan yihiin mudan gudoomiye haddaba mudan gudoomiye waxaan maxkamadda sharafta leh si xushmad uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad oo ah Aadan Nuur Muuse ninka u bareeray argixisada ku beeray dhiig inuu daadiyay bamba soo qaatay dhiig inuu meeshaas ku daadiyay habeenkaas u soo baxay waxaan maxkamadda sharafta leh ku codsanayaa inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeeyay oo ah ciqaabta faldambiyeedku halkaas ka geysan rabay mudan gudoomiye mudan garsoore maxkamadda sharafta leh Caawil Cabdi Maxamed oo gacan ku siiyay eedeysanaha koowaad inuu shaqadani qabto argixisanimadana la ogaa bacdama ay dhashay Cabdi Caawil waxaa dhalay Cabdi Maxamed Raage eedeysanaha koowaadna waxaa dhalay Fiican Maxamed Raage dhashay yaa dhalay waa eedadiis laxmiga dhashay aabihiisa Caawil aabihiis iyo waxa isla dhashay Fiican isla dhalatay oo ah eedeysanaha koowaad hooyadiis wuu ku ogaa argixisada mootadiisa u dhiibay waxaa la yaab leh mudan gudoomiye eedeysanaha koowaad haddii mooto u baahan yahay maalinka 16 bishii 8 ah oo qaraxa uu fulin rabo subaxeedii mooto iska gaday mooto feekano gaday eedeysanaha labaadna mootadiisi oo mas'uulku uu ka ahaa furaheedii uu ku wareejiyay eedeysanaha koowaad war haddii ninka mooto uu rabo inuu ku shaqeysto tiisa maba gadan lahayn be shaqada argixisnimadu ku fulin rabay wuuna la ogaa eedeysanaha koowaad $15 oo dalaal ah ka qaatay maxkamadda hadda horteeda ka yiri markii mootada la galay hadiiba mooto aa u dhiibaysa tiisa ma wato ma jirto waxaasi argixisnimadu la ogaa kama ogeyn kama saarayso xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kuma jirto waxba kama ogeyn kuma jirtaba dambigaani wuu galay inay dambi tahayna waa cadda saadarteen maxkamadda sharafta leh waxa ku codsanaya inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeeyay sidoo kale mudan gudoomiye mudan garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda ka codsanayaa marqaatiyaasha aan maxkamadda hor keenay waxay ahaayeen dad dadaalay niman dhalinyaro ah oo dadaalay oo badbaadiyay dhiig khaasatan jaceylow iyo carab waxay ahaayeen rag shacab ah oo goobtaasi dabaaldeg iyo farxad u yimid laakiin feejignaantooda ayaa waxay sababtay in dhagar qabayaasha la qabto feejignaantooda ayaa waxay sababtay in dhiig la badbaadiyo marka khaasatan waxa maxkamadda ka codsanayaa marka labadaasi qof ee dhalinyarada ah ee shacabka ah ee wax soo bartay dadaalay dhiig badbaadiyay dhagar qabayaashana soo qabtay in ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku darto laamaha amniga khaasatan hay'adda sirdoonka iyo nabad-sugidda qaranka bacdama ay yihiin rag feejigan sidoo kale waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa isbatoorihii booliiska ahaa ee eedeysanayaashani ku simay laamaha baarista kalena wareegay caawiyeyna dadka shacabka ahaa ee iska qabtay in ay maxkamadda ku ammaanto shaqadii wanaagsaneed ee uu gutay sidoo kalena maxkamadda ay u dalabto dalacaadda uu xaq u leeyahay bacdama isbatoore uu muddo dheer ahaa taliya jagboontina uu yahay in ay maxkamadda u dalacsiiso darajada sarkaalnimo maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay qareennada ayaa dhankooda garsoorka u jeediyey difaaca iyo codsiga muwaakiliintooda mudana gudoomiye mudana garsoorayaal magacaygu waa Maad Faarax Xasan waxaan qareen u ahay Aadan Nuur Muuse Raage kaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida uu ku soo eedeeyay qodobada kala ah qodobka 6aad farqadiisa 2aad iyo farqadiisa 3aad qodobka 8aad iyo qodobka 18aad iyo qodobka 21aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada mudana gudoomiye mudana garsoorayaal xafiiska xeeraalintu aadan waxyaabaha uu ka sheegayay qaarna waxba ka jira qaarna waxba kama jiraan qaarna aadan asiga qiraal ah qaarna ma aha qiraal taas bedelkeedana xafiisku ma aysan keenin wax cadeyn ah oo arinta sheegaya mudana gudoomiye maxaa ka jira waxyaabaha xafiiska xeeraalinta guud ee ciidamada ku soo eedeeyay aadan arinta kaliya mudana gudoomiye ee jirta aadanna maxkamadda ka hor qirtay waa isku day ama fal markaa aanan dhicin sababaha ugu istaagayne
ay ahayn dee inuu fulin waayey in lagu qabtay aysan ahayn ay ahayd in damiirkiisa sii waayey inuu falkaa fuliyo mudane guddoomiye aadan waa nin dhallinyaraa waa nin maskaxdiisa la bedelo laga aqli badiyey waa nin duruuf iska haysata idan waxaa u cuntami waysay inuu bamba tuuro isagoo heli kara inuu tuuro isagoo heli kara inuu dad muslimiin oo meel iskugu yimid dhiigkooda xaaraanta dhiigkooda inuu daadiyo waa u cuntami waysay sidaa daraaddeed mudane guddoomiye isagoo meel taagan cabsanaya qalqalaya ka baqaya raggii soo diray cabsi haysa haddii howshan fuli waayo ciqaabtoo la kulmi lahaa ka fikiraya mudane guddoomiye yaa si uu ku badbaado darteed wuxuu sameeyey mudane guddoomiye inuu sameeyo fal lagu qaban karo mudane guddoomiye qaab lagu qaban karo inuu sameeyo taasoo ahayd inuu dadkii dhex istaagay indhaha berbertay laga shakiye la qabtay mudane guddoomiye qabashadaasne aysan ahayn mid ii sheeg lagu qabtay mid asugu ka shaqeeyey ee ahayd arrintaas si falkan uusan u fulin mudane guddoomiye arrinta kaloo jirto oo lagu soo eedeeyey muwakilkayga aadan nuur waxaa waaye istidlaac mudane guddoomiye arrintaas isigana wuu diiday wax caddayn ah oo xafiiska xeeraalinta u soo gudbiyey maxkamadda oo arrintaas caddaynaysa ma jirto mudane guddoomiye waxaa kaloo jirin fal arrintaas lagu sameeyey oo meeloo istilaacay oo fal ka dhacay ma jirto ayadane mudane guddoomiye arrinta kale oo meesha jirta waxay tahay sababaha aadan nuur waa nin mootaalaa waa nin shirkadda kenya u shaqeeya idan marka waxaan suurtagal ahayn ama logical aan macquul ahayn nin shirkadda kenya u shaqeeya yaa waxaa la leeyahay soo bar number 4 shirkadda kenya qof u shaqeeya number 4 barashada ugu baahan yahay maxay tahay luqyada number 4 barashada ugu baahan yahay maxay tahay waa nin mootaalaahe maalin kastoo maraahe sababta u barana maxay tahay waa nin khabiire oo ku dhex wada magaalada luqluq kala yaqaano waaye idan marka sabab loo yiraahdo soo baro luqluqyada number 4 haba yaraatee meesha ma jirto sababta waa nin yaqaana waa nin shaqatay waa nin dhalinyaro ku xamaalo jiray mootadas feekonta mudane guddoomiye sidoo sheegayo qodobka 18aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hadduu qofka ka istaago faldambiyeed uu samayn rabay loo ciqaabi maayo faldambiyeedkaas mudane guddoomiye bamba la tuuray ma jirto qof wax loo geystana ma jirto waa ka istaagay asaa iskiisa ugu istaagay isagaa isku dhiibay markaa dadkii meesha joogay oo muusan cararin waxaa afkiisa ka yiri markhaatigii halkan la keenay ma cararin waa is dhiibay macnaheedu waxaa waaye inuu ugu tala kale in la qabto mudane guddoomiye sidoo kale sidoo sheegayo qodobka xeerka la dagaalanka argagixisada qodobkiisa 30aad wuxuu leeyahay firqadiisa koowaad xarafkiisa b wuxuu leeyahay waa laga khafiifinayaa ama waa la cafinayaa qof ugu tala kalay inuu faldambiyeed geysta laakiin aanan faldambiyeedkii gelin oo joojiyey qodobkaas toos u caddaynaya mudane guddoomiye aadan waxa kaliya maxkamadda horteeda ka qirsan yahay in qalad ka dhacay qaladkaasna ay ahayd inuu shabaab ku biiray hal bilna uu ku jiray wax haba yaraatee shaqaa oo shabaab ka qabtay aanan ahayn tan ugu tala kalay inuu isku dhiiba hay-adaha amniga isku dhiiba aysan ahayn oosan jirin arrintaas mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa haddaan gabagabada usii guda galo maadaama aadan baqirsan yahay maxkamaddu marin habaabin xaqiiqadan oo sheegay mudane garsoorayaal maadaama aadan yahay nin dhallinyaraa maadaama aadan yahay nin xoogsataa nin iska duruufaysan ninkaa arkaysaan oo nin wax soo baran yahay oo laga aqli badiyey sidigiis walaashiis qaba maskax ka weyn saaray sa ahaatee ka qowmameeyey falkii sa ahaatee aan wax dhiigi muslin ah aanan sababtiisa lagu daadin ama asiga uusan daadin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay u fiiriso sifaalaha dembiga cusleeya gaar ahaan qodobada 30aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada iyo qodobka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waa mahadsantahay murgudda magacayga waa abukaati cumar cabdiqaadir abubakar cumar dheer waxaan abukaatu ahay cawiil cabdi maxamed raage
si waafaqsan 15 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoorayaal Cawil marka loo aqriyo warqadiisa eeda si waafaqsan 103 wuxuu ku jawaabay si waafaqsan 104 dambigaani ma gelin oo macnaheedu ah bataatan shaqo kuma leh Cawil marka laga hadlayo taariikhdiisa Cawil horta waa nin dhalinyaro ah ku dhashay magaalada Muqdisho ku soo koray magaalada Muqdisho ku soo wax bartay ilaa iyo ku gaaray dugsi sare laakiin ma uusan dhameynin waxbarashada wuxuu kaga tagay meel dhexe Cawil waa nin xaasla ah caruurna u joogaan Cawil wuxuu ka shaqeyn jiray kambaniga Astaan TV oo uu ahaa farsamayaqaan dhinaca telefishinada gaar ahaan dadka guryaha rakiba ee anteenooyinka iyo TV-da xiriiriya sameeya muddo uu shaqeynaa Astaan TV wuxuu garwaaqsaday inuu ka tago uu gato mooto kuna shaqeysto mootadii ayuu wuxuu ku shaqeysanayaa in muddo kadib hadal wuxuu garwaaqsaday in uu ku biiro ciidanka qaranka Soomaaliyeed inuu naftiisa u huro iyo xoogiisa intaba wuxuu ku biiray ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa loo qaaday tababar wadanka gudihiisa ah tababarkii uu soo dhameystay tababarkii markuu ka yimid in muddo ah uu joogay 2 isbuuc wax ka yar ayaa walaalkiisa asiga la dhashay oo ilma abti ilma eed ay yihiin oo 2 isla dhalatay ay kala dhashay horena uusan ugu ogeyn inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab eedeysanaha koowaadna asigana uusan u sheegin inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab ayaa wuxuu yani moota asiga loo dhiibtay wuxuu kaga dhigtay kafar yani ku gambaday taasoo keentay maanta in uu la xiro lana soo saaro maxkamadda horteeda la soo istaajiyay xafiiska xeeraalinta ciidamada wuxuu ku soo eedeeyay inuu gacan siiyo sida banaanbo xeeraalintu markay warqad eed diyaarinayso eedda waxay ka tixraacaan ka diyaariyaan gungaarka baaraha markuu halkan soo istaaga wuxuu sheegay gungaarkiisa iyo gabagabadiisa in muwakkilkeyga uusan weliisna al-shabaab galin wax caddeena lagu haynin wax ticraacna lagu haynin gabagabadiisana wuxuu ku sheegay in uu ku waayay waxyaabaha yani lagu eedeynayo taa bedelkeeda xeeraalintu waa ka duwanta wuxuu ku eedeeyay gacansiin baarahana ma sheegin gungaarkana kuma qorno taasoo macnaha ay ka caddahay in xeerlaalyaha uu waafaqsan yahay gungaarka oo haysto ay soo diyaarisay hay-adna wasiyadda Cawil waa nin daacad ah waa nin dhalinyaro ah waa nin daljir ah waa nin ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliyeed hay-aduhu baaristana wuxuu u sheegay si wanaagsan oo ay ku dheehan tahay daahfurnaan iyo cadaalad ayuu wuxuu ugu sheegay baaritaankiisa wuxuu yahay iyo ninka la dhashay ee keeskan ka farq ugu dhigtay soo galiyay wuxuu yahay inta waa sheegay waxyaabaha kale uu sheegay marka waxa kamid ahaa in uusan wiligiisna ku ogeyn inuu la shaqeeyo kooxda al-shabaab inuu ku ogaa nin darawal ah mootoolo ah ku shaqeysta mootada feekonta wuxuu kula halkan ka sheegay eedeysanaha koowaad marka la weydiiyay oo la dhahay walaalkaada Cawil ma u sheegtay ina ka tirsan kooxda al-shabaab wuxuu yiri Cawil ima ogeyn taasoo macnaheedu ay yani waxa la jirka yani kaaga soo bixaysa hadduu Cawil u sheegay ama ogaan lahaa in uu mooto asiga leeyahay ama wakiil uu ka yahay inuusan u dhiibi lahayn ama xataa inuu asigna qala ninka ugu horeeyo ee lama ammaanka u soo sheegay oo yiraahda walaalkii aniga la dhashay wuxuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab askari qarna ah ayaa la xiro ama asaga gacanta ku soo qabanaa laakiin taas ma dhicin uu ka khiri taas darteed ayaa waxa dhacday markii in maanta halkan uu joogo maxkamadeyntiisa anigu marka hadalkayga soo koobaayo maadaama aan la keenin caddeyn inuu al-shabaab ka tirsan yahay ama la shaqeeyo ama uu siiyey gacansiin walaalkiisa aadan maadaama uu yahay qof daacad ah runtana ka sheegay si waafaqsan 160 iyo xarka xarka Soomaaliyeed wuxuu sheegayaa dabeecadaha eedaysana dabeecadiisa marka la fiiriyo waa nin wanaagsan runtana ka sheegay wax raad ah ama caddeyn aan loo waayo maadaama xeeraalintu uu keeni waa si waafaqsan 110 163 culayska caddeynta waxba uusan ka sheegin gabagabada baaraha ama gungaarkiisa uu ku sheegay inuusan wax caddeyn u haynin maxkamadda waxa ka codsanaya ninkaas wuxuu xiray in muddo muwakkilkeyga reer uu leeyahay
askartii uu soo tababartay oo dib uu kala soo yani qalin jibiyay waa shaqeeyaan hadda waa laga reebo muddo xireen waxa maxkamadda ku codsanayaa in ay xuriyadiisa ay siiso iyo in lagu waayo dambiga lagu soo eedeeyay si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka qaabta Soomaaliyeed maxkamadda sharafta la maasanta gabagabada dacwadda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ammaan u jeediyay dhalinyarada shacabka ee qabtay dhagar qabaha Jeceelow iyo Carab isagoona laamaha amniga faray in fursad loo siiyo ka mid noqoshada halyeeyada nool ee qaranka marka hore labada muwaadin ee shacabka ah ay qabtay eedeysanaha koowaad aadan nuur muuse way mahadsan yihiin Carab iyo Jeceelow waxaad gudateen waajib aanu guda karin qof walba inaad hub la'aan qabataan qof wata bam qarxi kara waxaad ku muujiseen dhiiranaan iyo nafurid waxaana maxkamadda horteeda idinkaga jeedinaynaa ammaan aad ku mudateen badbaadinta shacabka waxaan samayn doonaa qoraal aan hay'adaha amniga kaga dalbayno inay fursad idin siiyaan oo aad heshaan tababar iyo xuquuq aad uga mid noqonaysaan halyeeyada nool ee hay'adaha amniga aad iyo aad u mahadsantihiin waxaad tihiin daljirayaal guulaysta daljirayaal